kulanti waana wanaagsan dhigeystayaal meel walba joogtaan halkani waa shabakada wararka qurba joogta Soomaalida ee somalidiasporanews.com ama qurbajoog.com dhigeystayaal Cali Maxamed Daahir oo ah haweenadii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee isku soo sharaxda xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ayaa iyadoo ku sugan magaalada South Carolina Minnesota ee dalka Mareykanka ayaanu la yeelanay waraysi gaar ah oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan doorashada 2016 lagu wado in ay ka qabsoonto dalka Soomaaliya mushika ka dhanka ah madaxweyne Xasan Sheekh xiriirka maamulka Puntland iyo dawladda federaalka iyo waliba wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya hadaba dhigeystayaal aan marka hore Cali Maxamed Daahir ku soo dhaweeyo waraysigani gaarka iyo shabakada wararka ee qurbajoog.com waad mahadsantahay Khalid walaalo adiga iyo mataqaana bahda qurbajoogta diaspora.com aad baan idinku mahadcelinayaa wahagaag aan Cali marka hore waxaad nooga warantaa shaqadaadii ka hor inta aanad ku dhawaaqin inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya walaalo shaqadaydu waxaan ku noolaa horta gobolka Minnesota ayaa waxaan ku noolahay 7 sano wixii ka horeeyana waxaan ku noolaa gobol la yiraahdo Nashville Tennessee runtii markaan Minnesota imid waxaan noqday qurbajoogta diaspora kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan magaalo la yiraahdo St. Cloud oo u jirta magaalo madaxda San Paul hal saac ayaan deganahay shaqadayduna waxyaalo badan ayaan ka shaqeeyaa waxa ugu badan waxa weeye caawinta bulshada ayaan u shaqeeyaa waxaan aasay organization la yiraahdo Central Minnesota Somali Women and Youth Support oo caruurta iyo mataqaana dumarka lagu caawiyo soo gala wadanka ee qaxootiga ah waxaana ka ahay director iyo soo saarkii guddiga sare waxaan ahay dad qofka abaabulay mataqaana organizationkaas guriyaha iyo housingka siliga St. Cloud waxaan ka ahay board member commissioner oo ah guddiga guryeynta ayaan ka mid ahay isbitaalkana waan ka shaqeeyaa oo waxaan ahay turjumaan ku mataqaana luqadda Ingiriiska iyo luqadda Mareykanka kaga turjuma waxa ku saabsan medical terminology waxa la yiraahdo marka shaqooyin badan ayaan qabtaa runtii volunteer ayaan meel badan ka ahay intaas oo dhan ayaan qabtaa wahagaag aan canab sidaas sheegtayba waxaad horay uga soo shaqaysay hay'ad arrimaha haweenka iyo caruurta ka shaqeysa hadaba ma jiraan wax la taaban karo ama hawlqabad la taaban karo oo aad horay ugu soo qabatay haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed walaalo hay'adu 2012 baan aasnay markaan aasnay waxaa jirtay baahi weyn oo ku saabsan isdhexgalka bulshada St. Cloud maadaama ay tuulo yar tahay magaalo cadaan oo aad u deganaayeen inta lagu aqoonin dadka qaxootiga oo 10 sano ama 12 sano ugu dambeysay ay Soomaalidu ku soo badatay marka hay'adda markaan aasnay waxaan ka bilownay shaqadayada iskuulada iskuulka ayaa la shaqeynaa district 742 waxa la yiraahdo ayaa la shaqeynaa marka waxaan u qabanaa programyo la yiraahdo parent in action oo ku saabsan waalidiinta Soomaalida iyo caruurtooda sida ay uga caqabtiri lahaayeen luqadda Ingiriiska iyaga iyo macallimiinta iyo mataqaana iskuulaha iyo maamulka ay u yeelan lahaayeen mataqaana xiriir hay'adu marka arrimaha ka caawina waxa kamid ah isku xirka bulshada dhexgelida mataqaana ilmahooda iyo macallinka mataqaana waxyaalaha ay uga baahanayeen macluumaadka ay uga baahanayeen iskuulada oo loo fudaydiyo oo luqadda Soomaaliga loogu qoro sida warqadaha loogu soo diro gurigooda oo kale ku saabsan waxyaalaha iskuulada macallimiintiisa waxa kale oo walaalo ka shaqeynaa oo kale oo iyadana wax u fududeydinaa booliiska iyo mataqaana qolada loo yaqaano law enforcement-iga loo yaqaano oo ah dhibaato weyn ka haysato Soomaalida sida markay driver license ka qaadanayaan luqadda in loo bedelo oo luqadda ay ku qaataan imtixaanka luqadda Soomaaliga maadaama Ingiriiska aqoonin sida isku dhexgali lahaayeen bulshadan reer St. Cloud iyo booliiska Soomaalida iyo booliiska maadaama Soomaalidu ka qabto cabsi badan booliiska waxa kale oo walaal ka shaqeynaa maxkamadaha iyagana markii iyo qolyaha cayrta bixiya waanu caawinaa oo waxaan ka caawinaa wixii ay nooga baahdaan oo ku saabsan dadkan sida isku fahmi lahaayeen ama luqad ha noqoto sida loogu heli lahaa mataqaana qof turjumaana ama wixii dhaqanka Soomaalida ama culture-ka ama diintooda waxyaalo saas oo kala guriyahana waa la shaqeynaa sidaas oo kale oo iyaga naftirkooda waxaanu kala shaqeynaa sida ay dadka Soomaalida guriyo u siin lahaayeen وأنا فهم العين إني ضد قوضي ومصي إلى شتاء قولوا ذا كذا على لسوق الكريم أربع فربضان أنا عطا يعني وحكا قبلنا جامعة سيدو كلا وحبا نقعاونا
runtii meel kasta oo looga baahan yahay Soomaalida dhaqankeeda ama culture-keeda ama isfahankeeda isdhexgalka bulshada ayaanu aad ugu caawinaa waxa kamid ah kale oo qabtay oo kamid ah 2013 baan Soomaaliya ku noqday hay'adayda waxay wax ka soo qabatay caruur yar oo 200 oo ilmo dhan oo xalano ku nool ayaanu 2013 xaqul ciid iyo lacag ku ciidaan iyo mataqaanaa cunto qadadoodii waxa soo dhan waa hay'adayda samaysay marka waxyaalo far badan ma runtii qabanay waan gartay intaas oo dhan markaa waxaan filayaa intii aanad ku dhawaaqin inaad tahay murashax ayaad qabatay walaal intaan murashax ku dhawaaqin ayaan qabtay hawlahan oo dhan waa wax ii joogtaa Canabay goorma ayay kugu dhalatay inaad isku soo sharaxdo xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya walaalo horta arinaan waligay ku taamayay ahayd balse dhiirigelinta iyo go'aan qaadashada 2013 markaan Soomaaliya tagay ayaa waxaan soo arkay waxyaalo fara badan oo dhibaato ah oo dadka Soomaaliyeed haysata isbishal caruurta iyo haweenka haysta iyo dadka waayeelka in dhala'aanta curyaamiinta oo haysanin nolol ay ku noolaadaan oo runtii baaba'ay oo dad leeloobay noqday markaan soo laabtay ayaan mataqaanaa keligay tashtay markaan tashtayna maskaxdayda waxaan go'aan ku gaaray inaan mataqaanaa dadka u soo istaago oo anigu wixii aan noloshooda ka bedeli kara aan u soo istaago hase yeeshee sanadkan umaan bilaabay shaacinta aan sheegay iri mataqaanaa media oo kala ka hadlay وهجاج Canab rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in lagu doorto xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya walaal rajo weyn ma ka qabaa rajada weyn ka qabana waxa weeyaan dadku way daaleen dhibaato badan baa ka dhacday Soomaaliya burbur baa ka dhacay isboob baa ka dhacay hantidii dadka iyo dawladda waa la boobay ummadii Soomaaliyeed waa la baabiyay dadkii Soomaaliyeed waa la kala geeyay dadkii Soomaaliyeed mataqaanaa rajo ma haystaan caruurtii dhalinyaradii Soomaaliyeed baday ku dhamaadeen way baaba'een qaarna saxarada ay ku dhamaadeen dadkii Soomaalida waayeelka ah indhala'aan dagaala'aan baa ku dhacday curyaamiin ka wada fadhiyeen noqdeen xoolahoodii iyo noloshoodii iyo dawlad hanti qaado oo waxooda hantidooda dib u soo celisana waa la leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo maalin kasta ku dhimanaya mataqaanaa ilmaha ku dhimanaya oo dhakhtar haysanin oo caruurta Soomaaliyeed oo waxbarasho haysanin waxa soo dhan ayaa jirta wadanka Soomaaliya ka jirta marka way u baahan yihiin qof isbedel keena oo dadkan wax noloshooda ka bedela dadka wax isbedelka keenayana inaan anigu kamid ahay weeyaan anigu waxaan kulay xilka ku guuleysto waan rajaynayaa inaan mataqaanaa aan wax ka bedelo marka dadku way daaleen sidaa darteed waxaan rajaynayaa waxaan ay iftiinkii soo kacay oo soo kacay ummadda Soomaaliyeed iftiinkaas isaga aan xal baa loo helayaa xalka loo helayana ana wada marka rajo weyn ma kale ahay وهجاج Canabay sidee baad madaxweyne ku noqon kartaa bay kula tahay oo aad ku maamuli kartaa dal in ka badan 25 sanadood ay colaad halakeeyeen iyadoo waliba aan filayo in muddadaasi inteeda badan aad qurbaha adigu ku maqnayd walaal waxaan ku maamuli karaa dhulkan aan imaanay wadamadan u soo haajirnay qaxootiga ku imaanay waxaanu ka baranay maamul iyo management waxaanu aragnay dad xuquuqdoodu sidan tahay kan hadda wadanka soo galay iyo kii wadanka ku dhashay iyo kii aabihii iyo awowgii saddexaad ku dhasheen inay isku xuquuq yihiin sharcigu inuu dadka ay u siman yihiin waxaanu aragnay wadan ay jirto kala dambeyn waxaanu aragnay wadan ay mataqaanaa qofkii dhibaataysan la caawinayo waxaanu aragnay dhakhtar isbitaal qofka hadduu xanuunsado markiiba loola cararayo la weydiinayna lacag iyadoo waqtiga iyada haddii uusan ka caafimaad lahayn lacagta lagu soo dalacanay balse bukaanka isagaa la daweynayo marka wadan noocaas maadaama aan ku noolahay laakiin canabtaasi Soomaaliya kama jirto saw lama oran karo way ka jiri doontaa aniga geynaya aniga khibradan iyo khibradan aan leeyahay Soomaaliya waan geenayaa musharaxiinta ama dadka laga doorto Soomaaliya boqolkiiba 95 qurba joog weeyaan waa dad qurbaha ka yimid ama wadamada dariska ka yimaadaan ama meelaha aan dhulku joognaa ka yimaadaan sida darteed macnaheedu caqabad kuma noqonayso qofku inuu maamul waayo Soomaaliya waxay u baahan tahay waa managementadi iyo ismaamulka bay ka halowday maadaama in hoggaan dhab ah oo sax ah oo Soomaaliya oo muwaadina oo dadka noloshooda iyo noloshooda ka fikiraya oo caruurta dhamaanaysa ka fikiraysa oo hooyooyinka Soomaaliyeed ka fikiraysa uusan jirin oo jiraan niman jeebkooda u shaqaystayaal oo san dan iyo heela kala hayn wadanka marka maxaa diidaya qof qurbaha ka yimid oo mutacallima oo bartay nolosha bini'aadamka sida loo kabo inay doortaan oo madaxweyne u noqdo oo uu maamulo maxay loo diidi karaa ama teesan midna loo maamuli kari waaye laakiin Canabay way adag tahay baan filayaa adigoo garanaya dhanka dhaqanka Soomaalida inay gabadh xil u qabato dad Soomaaliyeed taas ma og tahay oo ma ku baraarugsan tahay adigu dhaqanku
dumarku aan horta kaaga khaalid aan waxay arinta taabto wax dhaqan oo horta diidaya gabadh inay maamusho ma jirto imikaba annaga maamulo Soomaaliya markii uu labadii dagaalkii sokeeye dhacay dumar Soomaaliyeed baa maamulayeen dumar Soomaaliyeed baa u gurmaday dumar Soomaaliyeed baa calamka oga yeeray oo yiri ha loo yeero dadka iyaga la soo qaado qaxooti ha loo codsado dumar Soomaaliyeed baa dahkooda u fura habeen iyo maalin dumar Soomaaliyeed baa haday abaar noqoto iyo meel kasta dumar Soomaaliyeed baa sanad bixiya marka sidaa darteed markii aanu baadiyaha dadku ay joogeen hooyada ayaa xoolaha rari jirtay awta rari jirtay guriga dhaqi jirtay dhali jirtay xoolaha ninku ilmaha geeyo ugu soo lisi jiray meelahiisa ayuu fadhi ku darurku ogowna maamulka hooyada ayaa ka timaadaa guriga aas-aaskiisa hooyada ayaa ka timaadaa sidaa darteed waxaanu hadda ogaanay oo noo soo baxday maadaama 25 sano waddanku uu burbursan yahay dumarku inay yihiin doorka wax ka bedeli doona siyaasadda Soomaaliya waqtigan xaadirka hadda la taagan yahay waan gartay canabay waxa dhawaanahanba soo ifbaxayay oo soo badanayay haween badan oo Soomaaliyeed oo isku soo taagaya xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya idinka ka haween ahaan intiina xilkan isku soo taagtay ma iska warqabtaan horta gabdhaha Soomaaliyeed inay xilka u soo istaagaan oo soo sharaxaan waa wax aad ugu farxo anigu ujeedadeedii waxay ahayd haddii aanan madaxweyne noqonin inay soo baxaan dumar Soomaaliyeed oo PhD holder oo wada dhakhaatiir oo wada professor oo guriyahooda fadhiya oo mataqaana la cabsaday oo nimanka Soomaaliyeed soo hortaagi waay oo isla ama nimanka ina dooran waayeen ama ina dilaan kuwaas horta waxaan u ahaa hormuud sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay horta gabdhaha Soomaaliyeed inay soo sharaxaan waana waxaan raadinayay hal iyo laba iyo saddex inay ma ahayn waxaan rabaa inay sodomeeyo soo sharaxaan oo ragga aan ku xiriirno kuraasta ay u hordayaan sababtay tahay raggu waxa way keeni waayeen waddanka iyagina way burburiyeen dadka iyagina way iibsadeen dalka iyagina way iibsadeen sidaa darteed anigu waxaan xiriir la leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan xiriir dumarnimo naga dhaxaysa laakiin xiriir ma taqaanaa siyaasadda aanu hadda u sharaxan u wada taagnaay nagama dhaxayso macnana ma sheegayso inaan taa arrinta ka wada hadalno balse waan ku faraxsanahay oo waan soo dhaweynayaa oo waan la challenge garaynayaa oo anigu cilmigayga iyo xibradayda iyo waxaan anigu canabaana keeni karaya la soo istaagaya marka walaal arrinta waa arrin ugu farxay aad baan ugu farxay waan soo dhaweynayaa waan gartay canabay dhawaan baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliyaba waxa ay sheegeen in sanadka 2016 aanay Soomaaliya ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah iyadoo geesta kalena baarlamaanka Soomaaliya ay bilaabeen mooshin xilka lagaga qaadayo madaxweyne Xasan Sheekh haddaba sidee u aragtaa arrimaha hadda Soomaaliya ka soconaya ma laga yaabaa in dhaawac ay ku keento murashaxnimadaada gaar ahaan tan doorashada ee sheegaysa in aanay dhici karin doorasho qof iyo cod ah runtii horta arrinta Khalid waa arrin laga naxo aad iyo aad arrin looga naxo weeyaan waa mugdi lagu hayay ummadda Soomaaliyeed 22 sano la soo dhaafay waa jid ay caadaysteen ummadda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed ee baarlamaanka ku jira iyo kuwa madaxdaaba inay ummadda Soomaaliyeed indhaha ka dhigaan waa waxay raadinayaan weligood waana waxay rabaan inay ku wadaan anagu ka yeeli mayno haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed annaga weyla waxa dhibaataysan anagu ka yeeli beesha caalamkana waxaan u soo jeedinaynaa inaysan arrintan arrin sax ahayn waxa lagu heshiiyay oo madaxweynaha Xasan Sheekh markii la dooranayo lagu heshiiyay oo beesha caalamka ay maqraati ka tahay oo lagu wada saxiixay inay dhacdo doorashada oo 2016 doorasho xalaal ah dhacdo wixii oo dhan waa la marin habaabiyay hantidii ummadda Soomaaliyeed waa la kufsaday ummadda Soomaaliyeed wixii xoolo la siinayay waxba laga soo qaban oo isbitaalada lama dhisin oo iskuulo lama dhisin oo waddanka nabadgelyada si dib looga soo habeeyay marka kama yeeli mayno waxa ay wataan hadiise ay odayaasha Soomaaliyeed ee noo ah xilka noo haya ee mataqaana ummadda Soomaaliyeed sharcigeeda hogaaminaya ay waxa ku dhaqmayaan midaanu ka yeelayna maaha mid ay soconaysana maaha hadday rabaan madaxweynaha ridaan hadday doonayaan hadday rabaan ha haystaan laakiin alla waadaan dumarka Soomaaliyeed waanu u taaganahay inay dhacdo doorashadu hadday dhici weydana hab kale ay ku dhacaysaa haddii aysan 2016 dhici weydana 20 insha Allah 2020 waxaan rajaynaynaa inuu istaagayno u dhabar adkayna oo badda caalamka iyo adduunka oo dhan u sheegayna Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho xaq ah waxba ima yeelayso waxna igama reebayso mar walba waan taaganahay ujeedaduna ma aha anigu inaan madaxweyne noqdo anigu ummadda Soomaaliyeed baan soo baxay u taaganahay waxaana ballan igu ah inaan adduunka caalamka meel walba istaago oo tuso ummadda Soomaaliyeed inay u baahan yihiin hoggaan sax ah oo dhab ah oo codkooda ku doortaan
laakiin canabay haddii lagu noqdo sida ay imikaba u socoto doorashadii ay madaxweynaha baarlamaanku soo dooran jireen ee qol dhexdii lagu dooran jiray taasi ma ka qayb galaysaa adigu doorasho siyaasad wadata oo la xadayo oo corruption aanu kama qayb galaya laakiin anigu miiska waan istaagaya anigu ma harayo miiska waan istaagaya caalamka tusaya inaan ahay qof muwaadin oo xaq u leh in la doorto dadkayga ayaan tusaya inaan ahay adeega iyaga u adeegayo oo raba in noloshooda wax ka bedelo marka wax lagu dooranaya anigu ma gelaya laakiin waan taaganahay doorashada waa ku jira intii la rabo lagu galaa dil rabo laakiin anigu waan u taaganahay xilka waan gartay canab arrin kale ayaa jirta oo waxaad adigu horay u tidhi waxaan doonayaa in aan dalkayga u geeriyoodo taasi oo macnaheedu ay tahay in ay jiraan dad aad ka cabsanayso ama kaaga takhallusaya adiga waayo dadka adiga sida gaarka kuu bartilmaameedsanaya ee aad cabsida ka muujisay Khalid walaal waa su'aal wanaagsan anigu hadda qof ila daba taagan qori ma jirto oo hadda ka baqayo balse siyaasadda Soomaaliya oo dhan ayaa argagixisada socota waad ogtahay ummadda Soomaaliyeed sidii loo ugaarsaday waad ogtahay ummadda Soomaaliyeed haliyadii waxa u aqoon-yahanadii fanaaniintii mataqaanaa dadkii khibrada ah ee wax garanayay intii u dhaqaaqaysa Soomaaliya oo dhan in la laayay waa dad cadow ah oo ka faa'iideysta ummadda Soomaaliyeed dhiigooda ayaa jira oo Soomaaliya jooga dadkaas ayaga ana qof aan farta ku fiiqayo ma jiraan balse waa dad aan haysanin dawlad sax oo hogaamisa maadaama dawlad fiican oo wanaagsan oo xaqa ku taagan oo cadaalad ku shaqeynaysa oo diinta islaamka dib ugu soo celinaysa oo dadka diinta u sheegaysa oo dadka masaakiinta caawinaysa ogow diinta lagu sheegayo waa nasiixo haddii aad ummadaada u nasiixiso u naxdo oo wax u qabato diinta lagu sheegayo waa intaa sidaa darteed waxaan u arkaa anigu inay jirin dad mataqaanaa Soomaaliya madax Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliya xaqabtiraysa inaysan jirin marka cadow badan baan yeelanay cadowgaas cid uu yahay lama yaqaano ilaa iyo hadda magac ayay ku sheegayaan waa al-shabaab waa al-qaacida waa al-kam bay ku leeyihiin laakiin anigu magac uma nisbaynayo waxaan u nisbaynayaa inay tahay ummaddu inay waayeen hoggaan dhaba oo Soomaaliyeed oo xaqa oo dadka islaamka ee Soomaalida hagaajiyo oo nidaamkooda kor u soo qaada sidaa darteed anigu markaan lahaa mataqaanaa waan u dhimanayaa waddankayga waxaan ka wadaa micnaha istaaga aan usoo istaagay waddankayga haddii la ii dilo oo dad ay isku dayaan naftayda inay ii qoonsadaan because ama xil darteed igu dilaan ama ay igu dilaan diin iyo waxaa loo joogina yidhaahdaan qofkaas waa ku janno tegaynaa noocaasaan ka wadaa diyaar baana u ahay naftayduna mar bay dhiman dee qof laba jeer dhimanayana adduunka ma jiro sidaa darteed hamigayga iyo rajadaydaa ka weyn dhimashadaan anigu dhimanayo waxaa aniga ii muuqda ummadda Soomaaliyeed in la mideeyo oo geed hoostii la fadhiisto waxaa aniga ii muuqda ummadda Soomaaliyeed inay xaq u leeyihiin inay kafeteriga wada fadhiistaan wada caweeyaan wada baarka fadhiistaan kafay wada cabaan oo walaalo wada noqdaan inay wada wax wada cunaan cabsina aysan muujinaynin nin gaari wata iyo nin xabad wata uniisa qarxinaynin anigu waxaasoo dhan baa ii muuqda waxaa ii muuqda futureka Soomaaliya carruurtayada inay waxbarasho helaan oo dhakhaatiir noqdaan oo injineer noqdaan anigu waxaa ii muuqda ummadda Soomaaliyeed oo la heshiisiyay oo gobol kasta oo Soomaaliya cadaalad ugu maamulo oo dakhliga waddanka soo galo lagu cadaaladoobo oo si cadaalad loogu tamasaro anigu waxaasoo dhan baa ii muuqda marka sidaa darteed dhimashada iima muuqato kama fikirayo waqtigan iyada la joogo ageesta kale xidhiidhka maamulka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya intiisa badan ma ahayn mid wanaagsan ilaa haddana waxaan ognahay inuu jiro khilaaf u dhaxeeyo maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ma isleedahay adigu khilaafaadkaasi inta badan soo noqnoqday waad u maaro heli kartaa haddii aad ku guulaysato doorashada 2016 Khalid walaalaha anigu rajo weyn ma leh anigu waxaan wada sidaydaba waa nasiixaduna waa sidaan hore kuugu sheego waxaan ku yiri ummadda Soomaaliyeed cadaalad bay u baahan yihiin gobol kasta degmo kasta oo degan yihiin cadaalad bay rabaan cadaaladii haddii la helo dadku way midoobay waana heshiin Puntland iyo Somaliland iyo Jubaland iyo gobolada kale ee gobolada dhexe iyo waxa hadda kulli wada doonaya inay meel gooni u go'aan kulligood sidooday ku joogayaan laakiin dawlad Soomaaliyeed oo qaran ah oo waxa dhici doonta ismaamusha dawladeeduna waxay sameynaysaa inay dadka u fidiso mataqaanaa heshiis daba oo walaaltinimo ah oo geed hoostii la fadhiisto oo la heshiisiyo oo la baabiyo dhiigii ku daatay waddanka la dhaqo oo la iska dhigo ummad hadda
dhalatay oo nadiifa oo Soomaaliyeed oo weligeed Soomaalidu way isla jireen oo diye kala qaadan jireen oo magbay kala qaadan jireen oo colaadu weligeed way jiri jirtay 25 sano ka hor bay jirtay xoolaha kala dhici jireen Soomaalidu intay isku soo duusho way kala mag qaadan jireen wayna heshiin jireen sababta waxaan leeyahay xal buuxda ayaad u helaysaa adigu haddaad madaxweyne noqoto carab ahaan xal baad u helaysaa waayo anigu waxaan aaminsanay aabbahay wuxuu ahaa nin dadka dhexdhexaadiya dhexdhexaadiskii aabbahay waana ka qaatay dhaxal baa ka qaatay ilaa iyo haddana halkan baanu ku samaynaa maraykankaanu ku samaynaa dadka inaan dhexdhexaadino labadii qof ee isku dhacda ama boolis ha noqdo iyo Soomaali kale ama ha noqdo qof macallina iyo Soomaali dhexdhexaadin baanu u samaynaa marka ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaadin bay u baahan tahay Puntland iyo Soomaaliya waa dad walaala oo Soomaali ah wax ka dhexeeya ma jiro waa laba gobol ama waa gobolka Banaadir ama waa gobolka taqaanaa ii sheeg Garowe waxa ku dhaw la heshiisiinaya sababtoo waxay isku haystaan waa cadaalad darradana way baaba'aysaa insha Allah Marwe Canab Somaliland iyadu waxa ay 1991 ku dhawaaqday inay Soomaaliya inteeda kale ka go'day iyadoo markaasi ku dhawaaqday Jamhuuriyadda Somaliland haddaba arrimaha Somaliland maxaa qorshe oo kaaga yaala iyadoo waliba aan ognahay in wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland uu hakad galay ma laga yaabaa in aad waji cusub u furto arrimaha Somaliland oo aad il gaar ku eegto waa hadiiba madaxweynaha Soomaaliya lagu doortay walaalo Somaliland waa dad Soomaali oo walaalaheena laakiin godob baa laga galay waan ugu celinayaa mar kale walaalaheen godob baa laga galay Somaliland godob baa laga galay godobkii laga galayna nin Soomaali ah oo Soomaaliya madaxweyne ka noqday oo yiri ma jirto war walaalayaal walaalaheen baa lahayneen dibkan iyo waxaan inii geysanay war wixii ah waa idinka xalmarinaynaa walaalaanu nahay waxa wadanka soo gala waa xaq baan u wada leenahay waa inay aqoonsanaynaa soo gala walaalaheen baa tihiine nala qaybsada waxa aan hayno nin Soomaali oo yiri ma jiray ilaa hadda sida daraadeed anigu waxa siyaasadeeda waxay kaga duwan tahay saarada ugu sheegay Soomaaliland waxay ka mid tahay dadka aan oran doono geedka hoostiisa ku heshiinaynaa wixii dhacayna waa dhaqayna waa baabiinaynaa godobtii la idinka galayna Soomaali way iswada laysay oo qabiil aan dilid ma jirto kan ugu yar baa laga dilay 10 qof ama 20 qof Soomaaliya way iscuntay balaaya ka faa'iideysatay oo waa shaytaan balaadi ka faa'iideysatay day shaytaankii wala afraan ku qabanayna waanu isku xirxiraynaa waanu midoobaynaa xal baana loo leeli Somaliland waa dad walaalaheena dad kala maarna maaha dad aan wadan kala go'i karna maaha laakiin imika iyada Somaliland anigu faraha lama geliyo waxaan u baahanahay inaan Soomaaliya soo mideeyo koonfurta Soomaaliya soo dejiyo badgeliya ka dhigo marka aan badgeliya ka soo dhigo Somaliland waanu iman goodka hoostiisa ku wada hadlaynaa wax khilaaf oo dhici doonana ma jirto walaaltinimo ku heshiin doonaa ugu dambeyntii Marwe Canab waxa tahay haweeneydii Soomaaliyeed ee ugu horeysay taasi oo isku soo sharaxda xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya maxay tahay fariinta aad shacabka xilka aad ka rabto u gudbinayso adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay qurbajoog.com baan idinku mahadnaqayaa ilaahay ka sokow ilaahay bay mahad u sugnaatay idinkana waa inii mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed fariin ayaan rabaa inaan u diro fariintaas oo ah fariin ka soo go'day qalbigayga iyo niyaddayda anigu waxaan ahay qof Soomaali ah oo daacada oo rabin ummadda Soomaaliyeed inay dhibaato iyo khilaaf dambe ku dhacdo waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inay iloobaan dhibaatadii soo martay waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed ilmaha sabiga ay hadda hooyadii dhashay oo kale inaan noqono oo dad dhashay oo cusub inaan noqono waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed anigu 9 bilood baa laygu dhalay Khalid adigu 9 baa lagu dhalay hooyada magac bay ku bixisay aabaha iyo hooyada way ku warqaleen ayagana sidoo kale waxaanu ku kala dheernahay ma jirto Khalid waxay igaga dheertahay oo kaliya oo aniga aad igaga sarreyn kartaa waa hadaa tahay qof Ilaahay xaqiisa igaga sarreeya oo ma taqaana Ilaahay xaqiisa iga caabud badan oo jannada iiga dhow Khalid waxa kale igu dhaafi karta waxay tahay waxbarashada aan soo baratay hadda tahay nin siyaasi ama macallin ama dhakhtar oo anigu inta haysanin walaal intaas adiga sarreysa laakiin qabiil iyo qurun iyo ma taqaana wax kale oo ku kala sarreeyna ma jirto qabiilku meeshiisu yaalaya qabyaaladaan baabiinayna qabyaalad qaran noqon mayso oo waa tan sida noo gashay 25 sanadood ayaanu ugaadhnahay ilmaha iyagii dhamaadeen dhalinyarada iyadii ku dhamaatay badda qaar argagixiso loo isticmaalay dadka iyagu waayeelka habaartamaya habaarkii ummadeena ayaa ugu dhacday
dadkeena geeriyoonaya habaarkooda nagu dhacay kuwa dhiigooda la daadinaya habaarkooda nagu dhacay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay baan idinku dhaarshay ummad Soomaaliyeed oo diin buuxda haysataa tihiin wax alla wax idinka maqan male wadankiina dakhliga yaala wallahi haddaad idinku soo saarataan oo ku heshiisaan way idinku filan yahay walaalayaal ilaahay baa idinku dhaariyay isku soo noqda oo iska daaya shisheeye kalkaaliska oo iska daaya dadkan inii kala baramay oo iska daaya xoolo jeclaysiga oo iska daaya adduunyadana jeclaysanaysa oo nin walba waxaad ogaataa maalinta qiyaamaha waxa lagu weydiin walaw caruurtaadana Allah halka dhigo qofka aad mas'uulka ka tahay war ilaahay ka baqa oo aan miiska iskugu soo laabano aniga idii soo haray walaashin baan ahay Aanad Maxamed Daahir baa leedahay waxaan ahay muwaadin raba inuu ummadda Soomaaliyeed cadaalad iyo midnimo iyo horumar u soo jeediyo waana keeni oo taan nadar baan ilaahay la galay anigu wax gaar ah ma doonayo xoolo iyo adduunyo kalena ma rabo magacna ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan noqdo halyeeygi u soo baxay ummadda Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaad si cadaalad oo cadaaladnimo ah aad ii doorataan oo qabiil igu dooranin xoolana igu dooranin wax kalena igu raacin laakiin aad Soomaaliyadnimo igu doorataan iguna soo dhaweysaan intaas idinka codsanaya waad mahadsantihiin